kulankan oo haweenka doonaya inay siyaasadda ka qayb galaan ay kaga tashanayeen xaqiijinta qoondada haweenka ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo tan federaalka iyadoo ay ka soo qayb galeen haween u tartamaya kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. xubno ka tirsan ka qaybgalayaasha oo furitaanka kulanka ka hadlay ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in mar dambe ay kuraasta kula loolamaan rag ee ay doonayaan in qoondadooda ay helaan. war haddaadan baawarka ilaahay ku sii aqoonin saa u isticmaasho adaa wadayaca waxa awoodi karnaa ogaaska iyo nabadoonka iyo ninkii la dhahayay guddiga doorashada iyo madaxweynihii Galmudug ina inta isku keenna meel fariisin aan dhaanahay anaga beeshaas aan dhahaa gabdhaha beeshaas waa cidahan ana kuraas ku leena kursiga beesha inaan meel saarin wax dhaqaaqi kara male hadday adhana warqadiina soo bixnaan oo tan saxiixinimo oo idinka la soo jeedino heshiiskan kan maxaa loo gudbo kana loo yeeray taas awoodi kara ma sameeyna waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta anoo joogo magaalada madaxda Galmudug ee Cadaado waxaan ku dhiirigelinayaa walaalahay gabdhaheena maanta soo aaday intaasoo kiiloomitir u soo jeexay inay wax noqdaan horta inay niyadda ka jabin sababtoo ah sida hore loogu sheegay waxa weeyaan saddexdii xubnoodba gabar baa iska mid baa gabaraa ku jirto aniga laba nin la tartamay waxaan aaminsanaa oo ku soo talagalay oo gabdhaha xildhibaanada u sheegay yani inaan ay wada dhiirigeliyeen ama gabar ha noqoto ama nin ha noqotee markay ugu yaraato wareegga koobaad inaan 30 ama 25 wuxuuna celi karno saddex qof aan waa qaybsan lahayn waxaa isla wareegga dambe la kala baxayaa أنا إسلام دورشة عادلة أيها كسر بحيسة وحن قبلها هذا ترتمى يقول تلينيا أما كرسي قبل هذا هالكاس هذا كنت ترتمى هدي اللي واي هجلين دورشة ولا شيء متألف اللي واحد ضلكوا هذا كل شقية وواحد ما ذا كسر بحي ويستوي شوقة ما ذا واحد كسر بحي كرسي قبلها إن قبل ترتمان gabdha iyo niman inay u tartamaan ma ahan annaga dhan ka baramoosayno oo ka qaadanayno ma ahan wixii meesha ku qornaa marka waxaan rabnaa annaga lafteeda waa u jilicsannahay gabadha markay tan waa iska jooseeyala waxyaalaha nala ku dhaliilay ka mid tahay haddii la waayo kursiga gabdhaha oo halkaa yaal nin hala tartaminina adiga dad waxaa jira dabada laga wado annagu waa is ognahay oo la leeyahay anaa ku empower gareyn wax ku tarayo col kuma horyaal dad col baa la hordhigay wasiiradda wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug Sahra Colaad Cabdi ayaa sheegtay in ka wasaarad ahaan ay haweenka ku garab taagan yihiin inay helaan qoondadooda taas way iskaashi aan sameynay aan rabnaan inaan maardo ku dhiirigelino gabdhaha doonaya inay ka soo qayb galaan doorashooyinka aqalka hoose waliba aqalkii sare maadaama uu dhamaaday si sharaf leh noogu dhamaaday taas way macnaha muhiimkayaga shirkayaga aan maanta isugu imaanay taas aan wada wadno wasaaradda haweenka ee dawladda federaalka iyo wasaaradda haweenka ee dawlad goboleedka Galmudug ee wada wadaan iska kaashteen sida gabdhaha doonaya doorashada inay ku soo baxaan ee baarlamaanka ee dawladda federaalka sidii ay u soo saari lahaayeen gabdho uga qayb gala baarlamaanka ee dawladda federaalka محمود عبد الدرشة ورباهين تقرن كعداده